gudoomiyaasha gobolada Soomaaliland ee hay'adda Bisha Cas ayaa booqasho safar shaqo ku yimi magaalada Ceergaabo waxaana gudoomiyaashan si weyn u soo dhaweeyay gudoomiyaha hay'adda Bisha Cas ee gobolka Sanaag Axmed Maxamed Xaashi waxaana gudoomiyaashan sheegeen in kulankoodani qayb ka yahay kulan sanadna ah oo ay isugu yimaadaan dhammaanba gudoomiyaasha hay'adda Bisha Cas ee guud ahaanba ka howlgala dalka Soomaaliland waxaana hadaladoodii kamid ahaa dhammaan madaxda Bilaha Cas oo hogaaminayo gudoomiyaha guud Soomaaliland ee Chairmanka مثل بكال قدوميها بشعسة لاسعانوت قدوميها بشعسة هرقيسة قدوميها بشعسة بالبراء قدوميها بشعسة بورمي قدوميها كوميونتي قبل كأوضل بورمي وعن اللي سؤال هذا عن الكسر الأولينا قبل كيني ودقمة عرقاوة قارهان فلان شي بشعسة عرقاوة يعني اللي الكسر هذا شركة يقل مكان ما يكشكيه وحوي سنة كيبة وحنا نسقط لنا قبر مر بولمي مر بالبلا مر هرقيسة مر برعو قدوميها سوي الشيء لبدا قدوميها دي الشيء با قدوميها بشعة الأسعارات بان هاي الحمد لله رب العالمين آد ما أنت فرصتنا وحيوتها هاي فرحة وين إن آد وحنقومها النقية إن قدوميها بشعة سناق سيدا وناكسن هاجر لعنتها ولا تنمذا اللي مذا ونوصل ويلا حيث نوصل ويا وآد نوصل ويا وحبنا بانو كفايدني وكلا فايدني MCH كان أرجعنا ورجعنا وحدنا بانو كفايدني ما أنت وأمالين قيمة وينوق فردة مالين حسوس مدن سجاري الله بعتنكي بشيء طبنات لما تكون يا فريق طبنك وحال كان مريا مركي كواد قدوميها شبيش بلها عص Somaliland لكن ومركي كواد قدوميها بلاها عسى قبلهم شركة يجي سند لها أها أورك سند كيف مرقب سنجري إن الله عن صدي سند كان إن لقوا قبته عرقاو. دانك كلا كنا لقى عليه في يدور كيهورم برنت بلعنا مجالات عرقاو أيا لقوا قبتي هو كحرمت الدولة هوسية مجالات عرقاو كلنا كنا سوين لسه عجاسمة يا وحكي سوق ما يركو عجان كمجالات عرقاو أنا كسيسمها ما يركا حل دبانو كان عستد اللامه هذا كلا دون سدا وديلا ده مقاحيها يوم عن لياشة waxaana ugu horreynba kulankaasi ka hadlay gudoomiyaha arrimaha bulshada Yaasiin Yuusuf Galle maadaama ay fayadhowrkii degmada tahay waxa kelmadda caafimaadka halka ka oran doona dhakhaatiirta oo waxa isaguna munaasabadaasi ka hadlay gudoomiyaha fayadhowrka degmada Ceergaabo iyo dhiirigelin iyo kor u qaadid aqoon xirfadeed aan ku wacyigelinayna ama ku baraarujinayna dhammaan hudheelada biitooyinka iyo maqaaxiyaha sidoo kale waxa iyaguna munaasabadaasi ka hadlay xubnaha aad u tiro badan oo dhamaantoodba ku dheeraaday ahmiyadda uu caafimaadku leeyahay bulshada ku dhaqan magaalada Ceergaabo qolay la xisaabtanta annagu haddaanu xildhibaanada nahay dadkiina hor fadhiya ee na soo doortay baa nala xisaabtamaya wax weeye nadaafatu min al-iimaan baa la yiraahdaa al-waqaayatu khayru min al-ilaaj baa la yiraahdaa way fara badan tahay erayada loo bixiyaa waxna ay tahay jiilba jiil buu wax ka qaataa gabagabadii waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayir ku-xigeenka magaalada Ceergaabo ahna ku-siisimaha maayirka Saalax Ismaaciil Cabaase oo sheegay ahmiyadda caafimaadku uu leeyahay bulshada waa maqlayseen waxa la isugu yeeray waxa ka hadlay dhakhaatiirta fayadhowrka ka hadleen waxa aynu meesha yaalaan waxa weeyaan waa wax danteena iyo danta ummadda caafimaadku inagu dan inoo yahay nadaafaduna inaga dan noo tahay bulshada oo dhan bay dan u tahay idinku waxaa tiin dadkii meheradaha lahaa magaalada uga furaayeen ku shaqaysanayay ummaddu u imanaysay waynu isbaraarujinaynaa waa Barkad Maxamuud geedi telefishinka caalamiga ah ee Kalsan Ceergaabo